بسم الله السلام عليكم ورحمة الله أدبا إسلامينا في عتيم بارجينيا اسكو سو laabasho wanaagsan waxaan muuqaalkii labaad ka sameyn doonaa Fund Next sanadii laba bilood kadib isbedelo badan oo ay sameeyeen waxyaalo badan oo ay soo kordhiyeen oo aad muhiim u ah horta Fund Next waa maxay waa profan ma aha broker waa profan waxa weeye waa company lacagtiisa ku siinaya oo aad lacagtiisa ku tirargelinaysid waa maxay faa'iidadiisu asaga uu ka rabo account fee buu ka qaadaya oo hadii ku dhacdo uu ka qaadanaya lacagtaas hadii abaastina uu ku soo celinaya labo hadii real trader tahayna dhaqaalo kula sameeynaya oo meesha adigu 5,000 iyo 10,000 iyo 20,000 wax la mid ah sameyn lahayd 100,000 buu wuxuu ku sameeynaya aqoontaada waana ruleskiisa qayb kamid ah weeye sidoo kale waxa ogaataan Fund Next real liquidity provider ma haysato simulated way akoomada simulated waa maxay environment-iga realka suuqa ka jirtay wax u eg baa lagu siinaya oo ayaga controlkeedii haya hadii marka aadan real trader ahayn oo robot iyo waxaas ayaga soo qabanay laakiin scalper hadii aad tahay hadii aad risk taker tahay dadkaas shirkadu aad bay u cabeeyaysaa iska ilaali marka dadkaas oo kale shirkada loogu matalagelin hadii aad noocaas tahay suuqa aadan aqoon u lahayn ha soo aadan Fund Next inkastoo aanan arag cilad ay dadkii ku qabteen laakiin qofka risk takerka spirit-ka kale ku kordhinayaan sleep page bay ku qabanayaan oo lodkaagi weynaa hadii sleep page lagu daro dhaylos la ku dhacaysa waan iska diraya in la socotaan baa filaya laakiin qofka traderka ay risk reward isticmaalayo khatarta meesha u imaanaysa fahansano dabeecadii suuqa la falgali karo waa shirkad ugu weyn oo aan kula talinayno weey marka ilaa 300,000 bay shirkadda bixisaa faa'iido qaybsiga ugu weyn ee industry-gana iyada sameeysa oo 95% ah qodobka saddexaad oo aan ku dooranayno waxa weey walaalayaal 15% inay ku siiso wixii aan shaqaysay phase 1 iyo phase 2 oo ah wax ay dheer tahay dhammaan shirkadaha maalgelinta bixiyo maanta jira xataa shirkad 1% bixisa ma jirto saaxiibayaal marka shirkadda soo galaysid oo rabtid in account ka furatid linkiga waxa idin dhiganaa muuqaalkan qaybtiisa hoose Discord waa ka helaysaa Telegram waa ka helaysaa oo soo dhufanaysaa linkiga waa soo gujinaysaa ama waa soo riixaysaa whatever wuxuu noqdo kadibna waa maxay marka register baa taabanaysaa register marka taabatid magacaagii iyo xogtaadii iyo waxaagii baa gelgelinaysaa halkaas ma aragtaan formka baa gelgelinaysaa kadibna waxaan dhan tigtaa saaraysaa register baa leedahay marka arinta waa ka soo gudbayaa akoona anigu leeyahay baan dhex geenayaa xogtiisana waa idinka qabsanayaa saaxiibayaal markaad samaysatid email-kaagii ama akoonkaaga soo login garaysatid dashboard ku siinaya dashboard-kaaga qaybteeda kore hadda waa idinka qariyay maadaama akoomo meesha igu jiraan muhiima hadhow inaan wax qarqariyo iyo in wixii hadhow aan qariyo kale laga qaado waxyaalo badan baa iska jiri kara dad badan baa iska jira maadaama muuqaalku YouTube uu soo galayo inaan waxaaga ilaashatid waa muhiim marka wuxuu ku siinayaa free trial inaad dooratid optionka waxyaalo badan bay ka bedeleen iyo inaad start challenge aad dhahdeen marka start challenge baa soo dooranaysaa halkaan ku keenaya oo ah choose plan baa dooranaysaa ma stellar baa rabtaa ma evaluation baa rabtaa ma stellar light marka waa haddaan idin dul maro akoonka stellarka iyo stellar light-ka maxay kala duwan yihiin waa muhiim stellarka iyo stellar light-ka waxay ku kala duwan yihiin kow waa kala lacag yar yihiin oo stellar light-ka yar labo akoomada yar baa kala duwan akoonka 6,000 buu ka bilaabanayaa kana 5,000 buu ka bilaabanayaa saddex waa maxay waxa farqiga u dhaxeeya share-ka percentage-ka akoonka uu leeyahay iyo evaluation-ka uu leeyahay akoonka ma leh ina isfahanay baa rajeenaya sidoo kale afar waa maxay phase 2 target-ka akoonka laga rabo stellar-ka iyo evaluation-ka waa 5% laakiin kan waa 4% intaas ba way kala duwan yihiin express-ku laakiin in ku kala matalnay sidiisaba stellar-ku marka muxuu kala baxaa 1 step iyo 2 step stellar light-ku 1 step male evaluation-ku 1 step male evaluation-ku wuxuu leeyahay time limit stellar-kuna waa maxay time limit male stellar light-kuna time limit male sida daraadid evaluation-ka iska ilaaliya sidoo kale evaluation-ku muxuu khatar ku leeyahay target-ka laga rabo badan 10% baa laga rabaa halkan labadan laga rabo 8% farqiga guud inaad fahantiin baa rajeenaya laba maxaa fahmi doontaan halkan hadda akhrisaan walaalayaal waa 15% share-ka ay heli doonto akoomada 1 step-ka ay kala hadirtaan stellar-ka haduu qofku gato hal phase baa ka gudubta moogta waxa ku darta akoonka $600 baa ku darta 10% $90 bay ku siinayaan waa maxay 2 step-ka $117 bay ku siinayaan $300 bay ku siinayaan lacag ku dhow $500 lacag ku dhow ilaa $2,000 akoomada waaweyn bay ku siinayaan anigu akoomadaas 2 step-ka ay 100,000 ah baa gataa 200,000 xataa ma gato 50,000 ma gato waxyaalaha yararka kuma mashquulo sababtoo ka ah
halkaas faa'iidada ugu badan ay taala akoonkiina waqti badan baa haysan kartaa labo evaluationku uu ka faa'iido badan yahay sababtoo uu ka target badan yahay oo macnaha 10% baa laga rabaa waa $600 hadaa ku dhufato 15% maxaa ku soo baxay $135 baa ku soo baxaysa $600 baa laga rabaa hadana maxaa laga rabaa $300 baa laga rabaa waa $900 baa 15% ku dhufanaysa halkan waa maxay wuu ka target badan yahay kaliya lacagtii baa badanaysa 2250 4500 1225 and so on stellar light kuna ma balehba ina isfahanay baa rajeynaya marka stellar baan dooranayaa get balan baa leeyahay 100,000 balankaas iibi waa maxay hadana mar kale options ku siinaya package kaaga dooro ku leeyahay ma stellar baa labtaa ma evaluation baa rabtaa ma stellar light baa rabtaa waa iska hubinaysaa mobile iyo computer kuna mar kale kugu celinayay way kala duwan yihiin one step miyaar tamsa two step baa dooranaysaa maxaa iska ilaalinaysaa hadana mar kale account size ka iska hubinaysaa 100,000 inay TikTok ku saaran tahay platform-ka waa iska hubinaysaa mid ka rabtid MT4 iyo MT5 waa isku mid MT5 ka hada iskaal bartaa isaa ku anfacaya hada overtrader tahay trader badan ay gashin isaa ku anfacaya sababtoo ka wuxuu ku leeyahay waxa la dhaho bulk operation oo inaad trade iska furan oo dhan qaybta faa'iidada mar wada xiratid qaybta khasaarada mar wada xiratid inaad lacag gaar ah qayb xirtid wax saas oo kale uu leeyahay marka hadii iskaal bartaay ama day trader tahay MT5 ka ku fiican anigu laakiin MT4 ba isticmaalaa waayo traderska aan galo dhan ba iska koobanba brokerku waa fund next kaliya iswaa free baad ku jinaysaa halka walaal maxaa ka muuqda addis on baa ka muuqda oo waxyaalo dheeraad ku akoonka oo lacag dheeraadana aad bixinaysid qayb kamid ay free noqon karaan ina isfahanay baa rajeynaya halka marka waxa ku jira lifetime payout oo faa'iidada akoonka 80% weeye 85% 95% bay ka bixinaya sorry maxaa daraysa laakiin lacagta akoonka ka bixin lahayd ba 20% ku daraysa calculator baa aadaysa 571 akoon ka bixin lahaa 20% baa ku dhufanaya ilaa 685 buu tagi doonaa halka hadaa fiirisan waa maxay labo price double price baa jirto waxa double price waxa weeye ina haysatid Allahumma salli ala Muhammad ina haysatid akoonka akoon la mid ah oo 60% ka qiimo hooseeya waa maxay meeshan 685 laba akoon hada waraba ina furto 100 kuna aan ka bixin lahaa 1200 dheeraad labadii akoon maxaan ka bixinaya $913 qiimo dhimis ay ku sii jirto 800 iyo xoogaa baa ka bixinaysa labadii akoon hadhow waa maxay marka akoon labaad oo 100 kuna oo akoonkan la mid ah waa helaysa goorma helaysa marka phase 1 iyo phase 2 ka go'aysid baa helaysa hadda helmaysid hadda hal akoon bay ku soo dirayaan qodobka kale oo reward muhiim ah sababtoo ka lacagta akoon ka bixisay 100% kugu soo dirayaan wax macna kuma fadhido $700 hadda ka bixisid in hadhow lagu siiyo $1,000 iyana $700 qaadatid waa isku mid marka $700 iimaanso waxba lacagtaas ku badan waayo 110 hadda ku dartid $700 ma yacni kugu darsamaysa hadda 685 way akoon wuxuu tagayaa ogow 700 iyo dheeraad buu tagayaa marka waa lacag aad ka maarmi kartid way marka waxba waxaan dooran continue baa leedahay marka waa maxay meesha muhiimka waa halkan akoonka ma card baa ku garanaysaa ma crypto hadda sanadka hore kala cryptada way soo daahay jirtay hadda laakiin automatic baa laga dhigay kadina waa maxay card baa dooranaysaa credit card baa dooranaysaa simple xogtaadii baa gashanaysaa hadda tan waxyaalo badan baa la fudeediyay anigu wixii dhan waa igu jiraan hadda one click hadaan taabto all of them way isgelinayaan xogti card hadaan taabto si automatic ah isku gelinaya marka ina isahni baa rajeynaya walaalayaal banka waa soo durkaysaa waxa leedahay bay waxyaalaha dhan markaa bixisid bay baa leedahay lacagtu ka jiranaya that's it akoonku waa iibsatay